kulanti wacan wanaagsan daawadayaal halkan waa warsan news waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay Soomaalida ee caalamka qaybtan waxaynu ku eegi doonaa Ismaaciil Cumar Geelle waxa uu hubeynayaa jabhado cusub oo ka dilaacaya qaybo ka mid ah deegaanada maamulka Somaliland ujeedada ka dambeysa ee xilligan ku soo beegaysa inuu hubeeyo jabhadan waxa ay uga dhigan tahay Somaliland cabsida xoogan ee soo wajahday hoggaanka sare ee maamulkaasi xogo iyo macluumaad arintan ku saabsan ayaan rabaa inaan muuqaalkan idinku soo koobo si la mid ahna intaanu ku guda jirno baahinteena sidoo kale waxaad daawan doontaan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo amar culus dul dhigay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir General Mungab amrayna inuu dib u xirto tuutaha xagee ayuu ku wajahan yahay maxaa qorshe ah oo xilligan ka soconaya Villa Soomaaliya wararkii ugu dambeeyay ayaan rabaa inaan halkan idinku soo koobo soo dhawaada saaxiibayaal haddii aad nagu cusubtihiin ku soo biira barteena YouTube channelka aad naga daawanaysaan si aad uga mid noqotaan saaxiibada inagu xiran aragtidaadana qaybta faalada ama commenti kaga soo dhibaaga aan ku bilaabo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xoga soo baxay waxay sheegayaan inuu hubeynayo jabhado cusub oo dhinac ah iyo deegaanada maamulka Somaliland ka soo isbaxay gaar ahaan dhinaca gobolka Awdal oo la sheegay inay u istaagayaan dhismaha maamulka Awdal State iyo si la mid ah in gabi ahaanba ay la dagaalamaan waxa ay ugu yeereen maamulka gooni u goosadka daneynaya ee Somaliland waxa la sheegay in xubno ka tirsan odayaasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka Awdal oo muddooyinkii ugu dambeeyay ku sugnaa dalka Djibouti lagu wargeliyay in si toos ah loo hubeynayo isla markaana ay ku dhawaaqaan jabhado midnimo doon ah kuwaas oo guud ahaan gobolka Awdal ka sameyn doona dhaqdhaqaaq guud ah waxaana hubkii ugu faraha badnaa ee loogu talagalay jabhadan laga soo daadgureynaya dalka Djibouti isla markaana la keenaya qaybo ka mid ah gobolka Awdal ee ay imikan maamulayso Somaliland marka la eego gobolkan xasarad xoogan ayaa wali ka jirta oo ka dhalatay soo bandhigida buuga xeer ciise oo si adag ay u diideen bulshada halkaasi ku nool isla markaana ay keentay in mudaaharaadyo qasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac sababay ay ka dhacaan qaybo ka mid ah deegaanada gobolka Awdal waxaana si la mid ahna in la hubeeyo jabhadaha ku sugan gobolkaasi ay ku soo aadaysaa xilli la tuhunsan yahay in xubno ka tirsan dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ay xiriir toos ah ay la leeyihiin dadka deegaanka isla markaana ku goobaabinayaan inay kacaan oo ay sameeyaan kacdoono looga soo horjeedo maamulka Somaliland tan iyo wixii ka dambeeyay markii Somaliland ay si toos ah u shaacisay in ay xiriir diblomaasiyadeed iyo ay aqoonsi ka heshay Israel waxaa jiray cadaadis xoogan oo kaga imaanayay dhinaca dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladda Djibouti waxay rumaysan tahay in haddii ay Israel saldhig ka hesho deegaanada maamulka Somaliland qatar weyn oo dhinaca ammaankeeda ay wajihi doonto hase ahaatee qorshahan sidii ay uga hortagi lahayd waxa ay doonaysaa in gabi ahaanba gacan ku haynta gobolka Awdal lagala wareego xukuumadda Somaliland ee uu hogaamiyo Cabdiraxmaan Ciro Djibouti dhawaan waxay ku dhawaaqday in gabi ahaanba ay xirtay xafiiskii loogu magac daray diblomaasiyadda ee ka furnaa magaalada Djibouti ee dalkaasi ee ay Somaliland ku lahayd halkaas ka gadaal markii uu gabi ahaanba xumaaday xiriirkii tooska ahaa ee ka dhaxeeyay labada dhinac xadka ay wadaagaan Somaliland iyo Djibouti ciidamo fara badan ayaa la gaarsiiyay halkaasi waxaana qorshuhu uu yahay in laga hortago dhaqdhaqaaq kasta oo liddi ku ah amniga dalka Djibouti waxaana si toos ah amarkan u bixiyay madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ma jirto ilaa imikan war rasmi ah oo ka soo baxay dhinaca xukuumadda maamulka Somaliland oo ay kaga hadlayaan hubeynta jabhado cusub oo ka dilaacay qaybo ka mid ah gobolka Awdal oo ay si toos ah u hubeynayso dawladda Djibouti waxaa jirtay in tuhunno badan ay qabeen Somaliland ee la xiriira in Djibouti ay si toos ah u faragelinayso danaha siyaasadda ee Somaliland wixii xogo ku soo kordhana muuqaaladana kuwan xiga ayaan idin wadaagi doonaa haddii aan eegno dhinaca kalena madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa amar culus dul dhigay gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho General Mungab isagoo amray in dib u tuutaha u xirto madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa isuristaha ku sameeyay socdaal uu shalay doonayay in dalka uu kaga ambabaxo isla markaana uu gaaro dalka Masar gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir Mungab
Mungab ayaa waxa uu xirir dhinaca telefoonka uu ka helay madaxtooyada xilli uu ku sugnaa qaybta lagu sugo in looga dhoofo garoonka diyaaradaha Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde halkaas isaga oo ku nasanaya ayaa si toos ah madaxtooyada xiriir ay ula sameeyay waxa la amray in uu hakiyo safarkiisa madaxtooyadana degdeg uu ku yimaado markii uu gaaray madaxtooyada waxa uu la fariistay oo kulan saacado badan qaatay uu la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyaga oo ka wada hadlay qorshaha madaxtooyada ee imikan ay dusha ka riixayso oo ay ugu horeyso isbedel maamul oo lagu sameyn doono maamulka gobolka Banaadir natiijooyinkii ka soo baxay doorashooyinkii golaha deegaanka sida GSB dhibcaha ay u heshay waxa keenay in degmooyinka qaar ee GSB ay ku qasaarto inta ka gadaal madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Mungab waxa uu kala hadlay sidii uu doorkiisa uga qaadan lahaa hawlgalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo si toos ah uga bilaaban doono qaybo kamid ah gobolka Shabeellada Dhexe hawlgalkan ayuu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Mungab u xaqiijiyay inuu si toos ah oo wadajir ah uga bilaaban doono Shabeellada Dhexe Hiiraan iyo Galguduud oo dhammaan deegaanada ay kooxda Shabaab kaga sugan tahay looga saari doono madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa Mungab amray inuu xirto tuutaha uu tago furmaha dagaalka ee gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ku sugan yihiin xubno beel ahaan isaga xiga isla markaana uu dib u abaabulo ciidamada deegaanka ah ee ku heebta ah isla markaana ay si toos ah ay u galaan hawlgalka ka dhanka kooxda Al-Shabaab oo si siman uga bilaaban doono saddexdan gobol oo aan idin sheegay oo ka kala tirsan Hirshabeelle iyo Galmudug waa Hiiraan Shabeellada Dhexe iyo gobolka Galgaduud madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qorsheynaya in si la mid ahna uu la fariisto madaxweynaha maamulka Galmudug Qoorqoor isla markaana uu amro inuu isna tuutaha dib u xirto uu furmaha dagaalka iska xaadiriyo dibna uu abaabulo ciidamadii golaha waa ciidamadii deegaanka ah ee tan iyo markii uu hakadka ku yimid hawlgalkii ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab dib isaga laabtay guryahooda waxaana imikan soconaya in dib mar kale boorka looga jafayo dagaalka ka dhanka kooxda Shabaab waxaase ay ku soo aadaysaa xilli madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud muddada xilhayntiisa ay gawaabsi ku sii dhowdahay oo 4 bilood oo qurx ay u harsan tahay waxaase la rumaysan yahay in tani ay tahay dana siyaasadeed oo madaxweynaha uu ka leeyahay uu doonayo in xubnaha siyaasiyiinta uu ku mashquuliyo sida ay qabaan dadka dhaliila aragtida villa Soomaaliya isla markaana si adag uga soo horjeeda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud markii uu yimid madaxtooyada waxa uu ugu horeeyay uu bilaabay dagaalka ka dhanka Al-Shabaab isagoo abaabul oo dadka deegaanka ah sameeyay hase ahaatee markii ay meel wanaagsan wax marayeen waxa la sheegay in madaxweynaha uu kaga mashquulo arrimo la xiriir wax ka bedelka dastuurka ay keentay in ciidamadii qaranka iyo kuwa deegaanadii ay kooxda kala wareegeen kol hore ay dib kooxda ula wareegto sabab la xiriira habac ku yimid hawlgalladaasi waad ku mahadsantihiin ilaa gunaanadka muuqaalkan haddii aad ila soo gaarteen nabadgelyo